وصدق ودني وما أنت إذين وذا 10 كلمة كسابسن lacag ma laga samayn karaa Amazon 2024. Waxaan la socnaa in muddooyin fara badan aan ka soo hadlaynay sida Amazon iyo eBay iyo dropshipping iyo arrimaha la halmaalo online ku saabsan sida lacagta looga sameeyo. Dad badan cashiradeenni way qaateen, dadna way ku anfaceen, dadna intooda badan iyagana waa ay haleeli kari waayeen inay ku guulaystaan. Waxaan ku talinaynaa inta badan qofka marka uu rabo inuu nafsadiisa hormariyo waxaa habboon in uu caqiidada ama dariiqa loogu talagalay uu raaco. Okay, so maanta waxaan rabnaa cashirkan inaan uga hadalno sidee lacag looga sameeyaa 2024 Amazon. Okay, Amazon ama online waxay doontaba ha noqoto, laakiin topigeena wuxuu ku saabsan yahay sida Amazon lacag looga sameyn lahaa iyo online-ka sidiisaba. Waxaan rabaa inaad codaysaan marka aad videogan daawataan inaad haa iyo maya aad noogu soo qortaan videogan xaggiisa hoose haddii aad ka daawanayso YouTube ama Facebook ama TikTok. Okay, waagaag horaan u galaynaa. Sida xagga ka muuqata waxaan rabnaa caqiidaha xaggan ku salaysan inaan raacno oo aan ugu talagalnay in caqiidooyinkan inay yihiin kuwa wax hagaajin kara. Waxaan ula jeednaa kuwa wax hagaajin kara. Waxaan leenahay in maadaama aan xaggan ku wadno in waxyaabaha aan ka hadlayno waxaan rabnaa qodobo muhiima inaan raacno oo ku salaysan ayagana inay na saacidi karaan. Okay, qodobadaas maxaa ka mid ah? Qodobadaas waxaa ka mid ah sidee Amazon lacag looga sameeyaa. Taariikhda aan qorayno waa 2021. Sorry, waxaan qaladnay. 2021 kaan qoraynaa oo maantadana waxaa habboon qofka raba inuu Amazon lacag ka sameeyo ama online sideedaba meel walba ay ku timaado, ha noqoto Facebook, ha noqoto dropshipping, ha noqoto Shopify, eBay, AliExpress, Alibaba, you name it, mid walba ugu yeer. Waa inaad diyaar u tahay inaad waqti geliso. Number 1, waqti inaad geliso waa inaad diyaar u tahay. Okay, waa inaad talabaadna waxay tahay waa inaad tababar heshaa. Tababar waa inaad heshaa. Number 2, tababar la'aan ama qof macallin ha ku baro ama qof kale ama video YouTube ka daawato oo aad perfect noqoto ayaan ku talinaynaa. Tan saddexaad waa inaad doorataa niche-ka ama waxa aad rabto inaad barato ay yihiin. Niche waxaa la yidhaahdaa qofka raba inuu hal shay ama laba shay u barto. Okay, sida dharka oo kale, electronic oo kale, sida home and goods waxyaabaha guryaha oo kale, sida carpet dharka haweenka oo kale, sida beauty and personal waxyaabaha la halmaala. Markaa intaa barato, markaad doorato waa inaad tan afraad waxay noqonaysaa waa inaad doorataa in aad iibinaysid alaabaha brandka loo yaqaano. Oo brand macnaheeda waxaan ka wadnaa annaga xagga North America joogno. Waxaa ka mid ah Nike, Apple ka mid ah, waxaa ka mid ah Microsoft. Inaad alaabahaas gudaha Mareykanka ka iibsanaysa ama North America ama Europe aad iyadana Amazon iyo eBay iyo Shopify meelaha la halmaala aad ku iibinaysid adoo ka raadinaya profitka ugu yar 30%. Okay, waa qorshaha nasiga ah. Marka waxaan rabaa inaan qorshahaas ku kor furin. Waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ka hadalno waa muqadas. Qofka waa inuu niche-kiisa ku jiraa meesha uu alaabaha ka soo iibsanayo. Waxaan rabnaa marka hore inaan ku furo barnaamijka waxyaabaha loo yaqaano brandka aan gudaha usii galno. Inta kalena waan usoo noqon doonaa. Waagaag waxaan ku jirnaa hadda pagekan aan hore usii diyaarinay. Pagekan aad arkaysid waxaad arkaysaa kaaga muuqda pagekan alaab iyada loo yaqaano Virtus brand. Alaabtan waa brand. Okay, waxaa leh kambanigan asiga ah oo ku yaala Mareykanka. Kambanigan 7 Virtual ayaa ka soo iibinaysaa. Alaabtan hadda ay cusub tahay. Waxaa xagga ku aragtaa alaabtan waxaa la iibin jiray $32, hadda waxaa la iibinayaa $19. Okay,
waxaa xagga ku arkaysaa Amazon marka aad soo geliso alaabtan in la iibinayo 38. So waa gudaha Mareykanka ka soo iibinaysaa ama North America ama Europe waxaa ku iibinaysaa xaggana ka soo qaadaysaa 19 waxaa ku iibinaysaa xagga kan oo iyada ah 38 19 waxaa profit ku jira ilaa $7 iyo waxyaabo la halmaala. Okay, so that's the brand waxa loo yaqaano. Waa hagaag dib aan ugu noqonaynaa koorsada aan ka hadlaynay. Koorsada aan ka hadlaynay oo taas ahayd waxaan rabnaa inaan mid kale sii raacino. So waxaan rabnaa inaan wax kale ku darno oo loo yaqaano non brand. Waa maxay non brand shayga loo yaqaano aan brand ka ahayn? Okay, non brand waxaa la yiraahdaa ana wax yar naga raali noqda. Non brand waxaa la yiraahdaa alaabaha aanan ahayn sida kuwa hadda aan ka hadlaynay oo China laga keeno. Okay, alaabaha China laga keeno waxaa loo yaqaanaa non brand. Okay, so tusaale waxaan u sheegi karnaa haddii aan tagno AliExpress haddaan aan ka eegno alaabaha AliExpress lagu iibinayo sida alaabahan oo kale home decor oo kale waxyaabaha guryaha la dhigto oo kale tusaale ahaan aan usoo qaadanaynaa sida baalkan oo kale vacuumka waxyaabahan oo kale waxay u egyihiin alaabo iyaga intooda badan aanan brand ahayn. Okay, marka alaabtan iyada soo qaado waxa ay kaaga baahan tahay juhdi badan inaad geliso. Tusaale aan kuu soo qaadan alaabtan haddii aad Amazon geyso waxaa ka arkaysaa eBay haddaad geyso waa ka arkaysaa dib aan ugu soo noqon doonaa. Alaabtan waxaa la dhahaa non brand. Okay, waa shay aan brand lahayn magac kuma qorno. haddaa u baahan tahay magaca baad ku qoranaysaa markaas kadib aad usoo diraysaa meelaha warehouseka Amazon iyo eBay iyo Shopify. Waxay noqonaysaa alaab adiga ku gooniya aad iibiso. Marka dadka intooda badan waxay isku qaldaan brandka iyo non brandka. Waa inaad kala saartaa. Non brand alaabta loo yaqaano sida tan oo kale wax xayeysiina kaagama baahna. Nothing advertisement. Gudahan u geli doona hadhow waa sii raaci doona laakiin alaabta aad soo iibiso oo Alibaba aad ka soo iibiso intooda badan waxay kaaga baahan yihiin xayeysiin iyo juhdi inaad geliso. Okay, so waa inaad kala garataa labadaas. Saaxiibo waxaa jiraan garanaya hadda oo ii sheegaan ku mahmahay xataa Amazon in lacag laga samayn karin laakiin dariiqa ay qaateen qofka hadduu ismoodo yacni inaad self study aad samayn karto waa inaad kalsoonideeda lahaataa. haddii aad ahaantaada isku daydo inaad wax barato kaligaa wax samayso waa inaad kalsoonidaada lahaataa. laakiin dadka ganacsigan ku jiray waa inaad xoogaa yar la tashataa oo aad tiraahdaa niyahow dariiqee laga baxa otherwise Amazon iyo eBay iyo online-ka lacag un kaliya kaaga khasaarayso. inaad samaysid waxa loo yaqaano consultation. dad Soomaali badan wax barta iyo caddaan badan dadku wax bara. offertiga aad geliso waxay noqonaysaa mid iyada kaaga soo noqota. waa hagaag dib aan ugu noqonaynaa. markaad brandka iyo hadda waa kala caddeynay brand iyo non brand waxa loo yaqaano. Okay, brandka saan ku sheegnay waa alaabo gudaha waddanka aad joogto aan China laga keenin oo company brand grey aad ka sii iibsanaysid. haddii ay noqoto in aad u baahato alaab inaad adiga investigayso keligaa China ama anywhere ka soo qaadato magacaaga ku soo qortaa Mareykanka soo geliso daa waxaa loo yaqaanaa non brand. Okay, Alibaba ka dalbatay waa gelisay. So dariiqyadooda ay kala leeyihiin waxa waa step by step aan usoo gudbin doonaa. waa hagaag dib aan ugu noqonaynaa. markaa intaas kala ogaato niche-ka aad samaysato aad brand iyo brand aad kala doorato meesha aad aadaysid waxaa muhiima mar labaad waa inaad juhdi gelisaa juhdi badan gelisaa si aad u aqoon u gaarto muhiimadaada. waa inaad haddana soo iibsataa aaladaha kuu fududaynaya. Okay, aaladaha kuu fududaynaya waxaan ka wadnaa marka aad rabto in aad brand iibiso waxaa muhiima inaad iibsato aaladda loo yaqaano software-radan loo yaqaano SellerUp iyo Keepa. Okay, xaq yacni waxay kaa saacidaysa ma jirto haddaad non brand alaaba aad iibinaysid aad soo iibsato software-radan hoose oo haddaad non brand aad iibinayso raali noqda haddaad non brand iibinayso aad soo iibsato software-radan loo yaqaano SellerUp iyo Keepa waxay kuu faa'iideynaysa ilaah burtumale waxba kama faa'iidaysid. haddaad non brand iibinaysid waa inaad iibsataa alaabahan loo yaqaano Holium 10 ama Jangliscard. Okay, haddii aad brand iibinaysid alaabaha brandka markaa iibinayso waxaa muhiima
inaad haysato software ku saacidaya oo loo yaqaano Keepa iyo SellerUp. Okay, so gudahan u galaynaa Keepada iyo SellerUpka siday kuu saacid. Waxaan ku noqonaynaa pagekii ahaa loo yaqaanay alaabtan iyada ah. Tusaalahan maanta aan u bixinayno markaan brand ka hadlayno waa lead cusub, qof alla qofkii rabaa iibsan karaa dadan lacag uu ka sameynaya bishii inta la iibiyo dibaad ka arki doontaan. Waa hagaag, maadaama annaga SellerUp aan haysano xaggan aan ku dhuftay, waa arkaysaa SellerUpka inuu xaggan ka soo booday. Waa inaad taqaanaa nambarada sida loo aqriyo, waa inaad barataa sida ay wax u kala socdaan, waqtiga la iibiyo, waqtiga la gado, waqtiga leadka meesha laga soo helo. Waa inaad taqaanaa full training. Markaad trainingka confidence aad leedahay, then markaas kadib ayaa waxaa habboon in aad iibisid alaabahan. Aad Amazon wax u dirto ama eBay wax ku iibiso ama Shopify. Laakiin adoo aan tababar qabin, walaal waxaa isku dayin inaad meeshan lacag ka samayso, jeebkaaga ula baqaysaa, qeyladaada baxaysa. Okay, so waa inaad ogaataa sidaad lacag maskaxdan waa inay shaqaysaa, because this platform Amazon ama eBay waxay u soo diyaar yihiin in ay ganacsi ka sameeyaan adiga waxaa soo geliso iyo waxaad samayso. Waa dad iskool u tegey, arrinkan darsay, dadka ay ku xiran yihiin. So waa inaad maskaxdaada furtaa si aad lacag uga samayn lahayd. Okay, waa hagaag. Alaabtan hadda waa ku dhufanay. SellerUp wuxuu noo sheegayaa alaabtii xaggan soo saaray. Wuxuu yidhi aniga wuxuu leeyahay alaabtan waxaad u tahay eligible, waad iibin kartaa. Okay, haddii aan iibin karo, wuxuu yidhi alaabtan waxay leedahay hazmat, waxa loo yaqaano alcoholic baa ku jira. Waa inaad eegtaa alaabta alcoholic la iibin karo, alaabtaan la iibin karo, waa inaad kala barataa. Taasna waxay noqonaysaa inaad qof training ka qaadato ama aad more YouTube research aad samayso. Alaabtan wuxuu ku leeyahay yes, waa dangerous good, maadaama hasmatic ay tahay waa dangerous good. Waa garan kartaa, waa barfuun wax la halmaala. Dangerous goods ma iibin kartaa. Laakiin alaabtan iyada hore meesha waxyaabahan soo buuxisay way fududaanaysaa. Laakiin hadday noqoto alaab barfuun iyo alcohol haddaa ka keento ii sheeg Asia, Dubai iyo China, ma iibin kartid. Waa inaad qualificationkan aad buuxisaa. Dangerous goods bulshada markay alaabtan iibiso maxaa harmful ma ku noqonaysaa, ma dhaawacaysaa bulshada. Okay, so intan waxaa noogu sii cad variation inay leedahay, macnaheeda yihiin kalaro kala duwan inay jiraan, which is xaggan aan ku aragnaa. So waxay noo sheegaysaa iibinayso 87 pieces. Okay, priceka annaga alaabtan aan kusoo iibinayno ugu yaraan waa inaysan ka badnayn 25 iyo 85 cents. Priceka hadda uu ka joogo waa 46.85. Haddaan xaggan eegno waxaa ku qoran 38.87. Sababtu u leeyahay waxay tahay FBA kaliya uu noo sheegaya. Okay, FBA uu noo sheegaya, waana kan FBA-ga qofka 46.78 ka iibinaya, qofka ugu horeeya. oo FBA waxaa la yiraahdaa fulfillment by Amazon. Okay, Amazon markay dirayso dadkan FBM-ka ku qoran tahay ma xisaabsano, annaga ma naqaano, we don't want inaan counti garayno. Okay, waxay iibinayaan wixii kale wax naga gala ma laha. So FBA wuxuu leeyahay waxaa iibinaysaa 46.94. Okay, waaga 46.94 marka la iibinaya alaabtan waa inaan ugu kusoo helnaa wax ka yar $26. Same alaab waay. Okay, waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa priceka 19 kan kusoo iibin plus canshuur iyo wax la halmaala markaan ku darno waxaan leenahay waxaan alaabtan kusoo heli karnaa alaabtan iska daaya, waxaan ku heli karnaa alaabtan 22. Okay, so marka aan $22 alaabtan aan kusoo helno waxaan ka faa'iidi doonaa $10.40. Okay, you need to understand the brand wax la dhaho. So liidadkan noocyadan oo kale annagaa dadka siina, ama adigaa nafsad ahaantaada sida loo baartaan ku bari karnaa liidka. Okay, adaan waxba dhibaato kaa bixin. So waxaa habboon inaad fahantaa brandka siduu u shaqeeya. Brand is just wadan walba wuxuu ku fiican yahay dadka Europe, Australia, yani ii sheeg, iyo New Zealand iyo North America degan, iyo somewhere Asia, maadaama ay Asia meelahaas iska dhib badan tahay. Waa qofka waa inuu account meelaha ku leeyahay, then he will profit lacag fara badan. Haddii aad ka soo iibiso alaabtan adoo aan dhibaato keenin, maadaama aad ku soo iibinayso 19, haddaa ka soo iibiso 25 xabo waxa aad faa'iiday $250 hal shay. Okay, fiyaashan marka $10 wuxuu ii leeyahay haddaan 922 ku soo iibiyo alaabtan la iibinaya waxaa ku jira Amazon fees. Amazon fees ay tusinaya sida ay
calculation u samaysay baashan iyada ah. Okay, xaggan waxaa ku qoran total fees waxaa laga qaadi doonaa Amazon waxaa iga qaadayso waa $14 $14 $15 Amazon iga qaadanaysaa. Okay, waxaan ka faa'iidayaa boqolkiiba 22.20 boqolkiiba, that means 22% ayaan faa'iidaynaa. So this is the ROI again waxay tahay ana faa'iidada waa taqaana revenue oo all income waxay tahay 47%, that means lacagta aan gelinay waxaan ka faa'iidnay wax ku dhawaada $10.40. Fiiga laga qaadayo waa $14.50 Amazon. Marka aan leeyahay Amazon fee badan ay qaad, dadka qaarkood waxay leeyihiin Amazon fee badan ay qaadaa. Fiiga Amazon ay qaadayso, Amazon waxay kaa iibinaysaa macaamiisha millionska oo halka mar soo galayo oo alaabaha ka iibsanaya. They have a customer. So Amazon yani donation dadku uma furin, waxay uga furtay inay lacag samayso. Okay, in order businesska siday u qoratay si ay uga faa'iido waxaa habboon in aad taqaanid sida looga shaqaysto. haddaa kusoo bood Amazon iska soo gashid for sure way aadan aqrin waxyaabahan iyo softwareadan aadan qaadanin, you lose the money. Okay, lacag baad dumanaysaa, but you have to understand. Soomaalida inta badan dad badan oo ila soo xiriiray yani they thinking qofkan Soomaaliga ah oo meeshan wax ka sheegay, dad waxaa jira more people waxaa jira ii sheegana oo ka hadla qorshahan. Everybody credence yeah, because everybody waxa uu ka hadlay 5 years 3 years 5 sano ka hadlaan, they know shaqadooda. Soon as qofkan training haduu bixinayo training ka qaado and then wixii su'aalaha ku dhacdo weydiiso, so waxaa helaysaa markaas waxa loo yaqaano ana kalsooni buuxda oo aad alaabihii ku iibin karto. But haddaadan aqoonin, annaga we spend more than since 2017. Okay, waxaa laga yaabaa maalintaan bilaabayna iyo maanta inaan isku mid ahayn, maalintaan bilaabayna iyo 2 sano ka hor inaan isku mid ahayn. So waxaan ula dan leeyahay walaalayaal, you know, it's just part of the waxa wanaagsan qofka inuu procedure-ka iyo training-ka qaato. Markaad nafsadaada aad investigayso, aad yani nafsadaada aad aqoon geliso, aqoon diineed iyo aqoon maadi ah, waxaad helaysaa faa'iido aad ku kala ogaato waxa aad baranayso waxa ay yihiin. So waxa habboon inaad raacdo buugga si aad ugu guulaysato buuggaas inaad ku baasto. Laakiin haddii aad shortcut aad raadiso meelo kale inaad ka jarjarto, always waxaa noqonaysaa nin meelaha laga jarjaro. That means waxaa ku dhamaanaysaa saa wax u raadisay. I don't mean aan ku dheeraado dadka qaarkood, laakiin it's very sad way, you know, markaan maqalno qof dhahayo ii sheeg waxaan wax lagama samayn karo. And at the same time haddana waxaan idinka codsanayaa haddii nafsad ahaantaada wax ku dhacday ummadda kale dhagahooda iyo aragtidooda ha ka dhigin shayga adiga saa u raadisay. Waxa waaye opinionkaaga, fikirkaaga waa inuu adiga kugu ekaadaa, sababtoo ah waxaa ogsoon tahay sidaad adiga u raadisay. Okay, sidaad dariiqa amartaad ogsoon tahay oo shortcut-ka ah. Marka please and please, you know, marka waxaan rabaa waa ku dheeraaday, waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo one more thing. Waxaan xagga ku soo aragnay markaad u baahan tahay brand product ama alaabaha magaca brandka oo gudaha laga iibiyo, waxaad u baahan tahay seller app-ka hadda waa ka hadalnay, waa kan seller app-ka maantana sharaxaynay. Iyo waxaa kaloo u baahan tahay waxa loo yaqaano Keepa. Okay, Keepa labadan software haddaadan haysanin, I don't think inaad lacag ka samayn karta Amazon aday lacag kaa samaynaysaa. Why? Waxaa dhacdo waxaa xagga ku cadaynaynaa haddii cashirooyin sida goonida u bixino, waxaan si deeply ama gudaha ku salaysan u sharaxnaa sida Amazon looga shaqaysto. Tusaale waxaa ah hadda xagga waxaa ku qoran nambaro iyo magacyo isaga qorqoran, you don't know meesha u socdaan. Okay, xagga waxaan ku cadaynay alaabahan inay iibinayaan how many people. Alaabtan 87 la iibinaya, waxaa dhici karta competitor-ka inuu cirka galo, competitor badan inuu noqdo meesha. Laakiin annaga xagga waxaan ku cadaynay dhinacan midig, waxaan ku cadaynay inta qofood iibinaysa. waxaan ku aragnay 3 qofood oo FBA ah, fulfillment by Amazon, iyo FBM oo 7 qofood ah. So alaabtan haddii aad Amazon u dirto waxaa noqonaysaa qofkii afraad, maadaama alaabtan 87 ay iibinayso, waxaa noqonaysaa Amazon qofka ay number 1 ka siiso alaabtan. Adiga iyo ninkan adaa ka faa'iido badan FBM-ka ah. Okay, FBA-ga ah. Ninka FBM fulfillment by merchant waa nin gurigiisa alaabta u taalo ka diray, because Amazon lacag kama faa'iidayso.
haddii aan tusaale ka dhigna taas waxaa ku cadaynayso meeshan waxaa ku qoran Amazon naga faa'iideysaa $14.44 so adiga marka ugu horeysaba kaama dhigayso qofka ugu horeeya alaabtiisa haddii aniga aan isla degannahay North America waxaan isla degannahay ana westiga Minnesota agaarkeeda hadduu qof Minnesota agaarkeeda alaabtan soo weydiiyo Amazon waxay tusinaysaa FBA-ga qofka ugu dhow haddii laakiin FBM aad tahay hadda $15 alaabta ku dhawaad iga qaadanaysa haddaa FBM tahay haddaan ku dhufto Amazon fiigeedu wuxuu noqonayaa $9.47 okay lacag yar ayaa iga qaadaysa aniga waxaan dheerahay qofkan Amazon alaabta u diray waxaan dheerahay laba shay baan dheerahay waxaan dheerahay $6 debut inay iga qaato iyo Amazon in qofka Amazon Prime haysta kaliya in uu alaabtan Amazon Prime waxaa la dhahaa calaamadan xagga ku qoran buy with the Prime baad xaq u yeelanaysaa that means qofka inay uga tagto 3 casho gudahooda okay so sidaa la'alligeed waxay noqonaysaa $9.50 Amazon intay kaa qaadan lahayd waxay jeceshahay inay lacag badan ka qaado qofkan alaabtan ay hayso isku hubto macmiilkan inuu alaabta helayo so sidaa la'alligeed ayaa waxaa looga qaadaa FBA-ga qofka $14 iyo bar okay kaas waa kaas waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo xagga waxaan ku soo aragnay 3 qofood inay alaabtan iibinayso iyo 7 qofood oo FBM ah iyo alaabtan in la iibinayo price-ka hadda uu marayo inuu yahay $46.84 qofka FBA-ga qofka FBM-kana uu iibinayo $38.79 sababtoo ah waxaa lagu kala garan karaa qofka macmiilka markuu inta soo galo ma kala oga qofkan inuu yahay FBM wuxuu isleeyahay qofkan ay iibinayo alaabta Virtus 3 ay iibinayo alaabtana Virtus ma iibinayso annagaa soo gadanay laakiin kuma sheegayso qofka daa laakiin xaggan eegto waxay kuu sheegaysaa ship from 11 mint in la yiraahdo ayaa soo ship garanaya sold by waxaa iibinaya 11 mint return non returnable alaabtan haddii xataa ay iyadoo jajaban kuu timaado qofkan gurigiisa ka diraya sharcigiisa wuxuu diyaarsaday alaabtan inaysan xataa aadan u celin karin qofkan haddii alaabtan kuu timaado okay policy waay laakiin qofka macmiilka ah waxyaabaha aan ka hadlayo wuxuu ka ogsoon yahay ilaa abuurta ma jirto waxaa sii dheer waxaan rabnaa inaan ogaado qofkan inuu gurigiisa ka diraayo in kale waxaynu leeyahay maanta waa taariikhda 21 waxa uu leeyahay alaabtan waxa la soo dirayaa 27ka ilaa waxaa helaysaa 29ka that means how many days waay 11 casho wax ka badan waay laakiin qofka hadduu haysto Prime waxa loo yaqaano ama dedegsiimo uu rabo xaggan waxaa ku qoran or faster December 26 ama 28 that means haddaa faster u baahan tahay wax ka dedegsan taariikhda meeshan ku qoran 26kan kuu keeni karnaa that means FBA-ga noogu dhow waa 26ka okay so saas ayay يعني aan lagu kala ogaadaa alaabtan inay qofkan inuu FBA yahay ama FBM ama haddaa software-kan haysato xaggan ayaa tan ayaa kuu fududaynaysa that's why software-kan muhiim u tahay hagaag waxaan ku noqonayaa haddana waxa loo yaqaano Kiba waatan okay chartigan they call Kiba waxayna leedahay number 1 waxaan fiirinaa alaabtan iyadaa la iibinayo maxay tahay alaabtan iyadaa perfume AAU waa deep perfumes okay 0.33 ounce xaggan waxaa ku qoran perfume fragrance bishii waxaa la iibiyaa 24 drop bishii waxay alaabtan la iibiyaa month 24 ayaa la iibiyaa ugu yaraan bay leedahay waxay noo xisaabaysaa allahu aclam waxay xisaabaysaa laakiin waxaan ku ogaan karnaa markaan gudaha u galno maadaama uu qorshahan yahay asiga chartiga waa sida dadkii forexiska iyo cryptida ciyaara garan kara waxsaan u boodboodo marba wax isbedela okay number 1 waxaan ku bilaabaynaa saan u sharaxno waxaan rabnaa qaybtan hoose ayaan rabnaa inaan sharaxno markaad aragto calaamadan buluug oo kala saan u socoto iyo alaabahan waxaa kala iibinaya alaab mustacmal ah iyo waxaa la iibinaya alaab cusub okay haddadan waxaa xagga noogu qoran 3 qofood inay iibinaysay FBA xaggana ay iibinayso 7 qofood waxaan ka wadaa 7 qofood iibinaysay 3 qofood okay so dadka FBM-ka waa kan calaamadan cagaarka dadka FBA-gana waa kan calaamadan buluuga waxaan saaraynaa mouskeena calaamadan
bluega ah okay xaggaa waxaa noogu qoran waxaa iibinaysa 10 qofood alaabaha usedkana waxaa iibinaya 10 qofood so way isla egyihiin labada dhinac so that means waxay ku tusinaysaa dadka new offer meeshay ku qoran tahay waa 10 xaggana waxaa ku qoran 10 qofood ayaa iibinaysa lacagta la iibinayo haddaan xagga saaro waxaa noo soo baxaya xagga kore meesha bluega ah waxaa noo soo baxay 38 meesha cagaarkana waxaa noo soo baxay 46 meesha bankiga ah iraade that means taas waxay ku kala tusinaysaa dadka ana 3879 waxaa iibinaya FBM fulfillment by merchant ana 46 ka meesha ku qoran tahay waxaa iibinaya fulfillment by Amazon okay so this is the Kiba another way oo lagu ogaado inta badan laakiin Kiba kuma sheegayso dadka magacyadooda iibinaya kuwan casharo kale aan dib uga bixin doonaa marka si aan gudaha ugu galno ana waa ogsoonahay casharkan aad buu hal mar madaxa idinka saaraya sababtoo ah waxaan rabaa inaad fiidiyoodii dambe dib u soo qaadataan aad tartiib oo la socotaan maadaama aad glasskan haddaad ka gaarsiisanayn so waxaan sameynaynaa ana waxaan leenahay datadaas meesha ku qoran ku dhufanaysaa xaggan waxaa kaaga soo baxaya ana alaabtan inay buy box waxa loo yaqaan buy box waxa la dhahaa waxa markuu wareega alaabtan informationkeeda xag ku aragnaa okay buy box seller haddadan buy box ka cid iibinaysa waxay tahay great deals nin la yiraahdo lowest FBA qofka Amazon fulfillment ka dirayna waa Daniel ninkan ugu raqiisan okay macluumaadiyada xag kaaga sharaxaysa macluumaadiyada okay casharada dambe aan ku qaadan doonaa iyo qofkii toos nala soo xiriiraan toos uga sharaxin doonaa okay so haddadan waxaa xooga saaraya buy box ana statics buy box statics waxa la yiraahdo buy box-ka ma war yani marba qof ma u tagay Amazon waxa ay bixisaa waxa loo yaqaan buy box-ka uu wareega hadda adiga hadda alaabtan ay tahay 40 hadda ka dhigto 35 buy box-ku korimaan qofka 40gan uu u tagay buy box-ka rotation ama marka uu wareegayo waxa haboon ana waa alaabta u baahan inaad wax ka iibiso aad dhinac ka gasho okay waaga waxaan ku dhufanaynaa buy box rotation section okay xagga waxaan noogu qoran waxaan xagga ku arkaynaa ninkan waa aragtaan 11 months xaggan ku aragnay 11 months waa ninka hadda 4496 ka iibinaya ana 11 months waxa uu iibiyay 11 months waa ninka hadda iibinaya alaabta 2 minutes ka hor ayuu iibiyay ninka loo yaqaan 11 months okay sababta 11 months xaggan ugu qoran yahay waxay tahay ninka xaggan noogu qoran waa 11 months okay 11 months waa ninka alaabtan hadda number 1 ka buy box ka uu kor saaran yahay calaamadda madow waa garasoomaha waa ninka hadda buy box ka haysta so laakiin saacado ka hor just now waxaa haysta nin loo yaqaan great deals asna wuxuu ahaa nin FBM ah wax yar ka hor okay haddana 2 minutes ago ninkaana gacanta ku haysta 11 months aan sii socona 9 days ago haddaan sii fiirino waxa ay alaabtan ag taalay dadkan loo yaqaan FBA-ga ayaa xoog u gadaayay waxaana iibinayaan 5398 ninkan wuxuu iibinaya alaabtan iibinaya 5316 ninkan alaabta hoos u dhigay waxaa la siiyay 4496 uu iibinaya laakiin haddaan ku soo noqono saacado kadib ma ahaan doono nin kaliya alaabtan Amazon ay favor uga dhigto okay waxaana uu stack ka haya 2 pieces ninkan 1 pieces laga yaabo inuu halka xaba xataa iibiyay ninkan waxa uu hay lama oga yani this is how you know statistic of buy box inuu rotation sameeyna marka saan ku aragto buy box is rotation alaabtan waa alaab socota aad bay u fiican tahay okay ana offers aan ku diraya very fast aan u baxaya offers alaabtan ani waxa ay cadaanaysa ana FBI da intay iibiso FBA only hadaan FBA alaabtan in laga iibiyo bishii xagga waxay noo sheegtay ana hadayt xaggan hoos waxaan ku arkaynaa alaabtan bishii inay iibiso 25 which is true okay saddex xabana ay iibisay waxa loo yaqaano FBA cashiradan waa cashirooyinkan sida gooni aan u bixino inaad confuse ku noqonaysaan waa dhici kartaa laakiin muhiimadeena videogan wuxuu ahaa in Amazon lacag laga samayn karo iyo in kale fadlan xagga hoose noogu qora ha iyo maya subscribe and share videogan asigana waagaag hadda waxaan xagga ku baranay sida looga shaqaysto ana brand markaad ka shaqaysanayd inaad u baahan tahay ana brand markaad alaabta brand markaad iibinaysid inaad u baahan tahay waxa loo yaqaano ana seller up iyo keeper okay marka haddii aad iibinaysid aad alaab China ka keenaysid
maxaa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay labadan software midkood inaad haysato annaga waxaan isticmaalnaa junglescad waxa uu soo baxay 2007 I believe 17 meelahaas uu soo baxay 15kii annaga waxaan kusoo biirnay 2017kii ayaan isha ka mid noqonay waxa loo yaqaano junglescad okay waxaan aaminsanahay junglescad Helium 10 wuxuu soo baxay I believe 2000 I think 2019 May 2020 2019 I'm not sure marka aniga waxaan aaminsanahay junglescad inuu ka xoogan yahay